السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن إذا لهانتي بداوضي الملك سو دافع عالم كان نقل سعتان هل كان واي اس تي في وحنا لسو غاري xilliyadan alaabaha wadadii soo marin jiray war waxaan idinka inoo deegaanka dalka iyo dibadiisa warka hadda waxa idin la socodsiinaya anigu Cabdiid Maxamed ah qodobada wararka hadda aan idin hayna ugu door qarorna waxa kamid ah shaqaalaha bangiga ganacsiga Itoobiya halaantiisa deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa ku wareejiyay deeq raashinka laquutaha gudiga barakacayaasha ee ganacsatada deegaanka xafiiska koortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan koortaga cudurka HIV/AIDS kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka wadanka Jarmalka ayaa sheegay in ay la shaqeynayaan baahda labuurka ee wadamada Afrika daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda kusoo dhawaada markale kulanti wacan oo wanaagsan hadana kusoo dhawaada qodobadii warka oo dhameystiran shaqaalaha bangiga ganacsiga Itoobiya halaantiisa deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa ku wareejiyay deeq raashinka laquutaha gudiga barakacayaasha ee ganacsatada deegaanka faalada warkana waxa inoo haya wariye Cabdirasaaq Ibraahim Idaaja shaqaalaha ka howlgala branchiyada kala duwan ee bangiga ganacsiga ee dalkeena Itoobiya ayaa qayb ka mid ah mushaarkooda oo ugu soo iibiyay raashinka noocyadiisa kala duwan dadkii Soomaalida ahaa ee soo barakacay raashinkani oo isugu jira bariis baasto daqiiq saliid iyo oomo ayaa waxa lagu wareejiyay gudiga barakacayaasha ee ganacsatada deegaanka Garaad Kulmiya Garaad Maxamuud Garaadool oo ku hadlaya magaca gudiga barakacayaasha ee ganacsatada deegaanka oo ka warbixinaya deeqdani loogu talagalay dadkii Soomaalida ahaa ee soo barakacayna waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka go'aanshiyaha ay sameeyeen shaqaalahani bangiga ganacsiga ee dalkeena Itoobiya isla markaasina aad ugu mahadceliyay tilmaamayna inay arintani tahay arrin ku dayasho mudan bangiga ganacsiga ee dalkeena Itoobiya oo hadda ka hor si guud ugu deeqay dadkii Soomaalida ahaa ee soo barakacay lacag dhan 5 milyan oo bir ayaa wali wada dadaaladii ay ku caawin lahaayeen isla markaasina wax ugu qaban lahaayeen dadkani Soomaalida ah ee soo barakacay xafiiska koortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan koortaga cudurka HIV/AIDS kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka faalada warkana waxa inoo haya wariye Amiin Qaamus xafiiska koortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurka isagoo sanooyinka ugu dambeeyay guulo wax kool uu ka soo yahay xafiisku sidii loo dhimi lahaa cudurkan bulshadana looga wacyigelin lahaa halista cudurka iyo siyaabaha uu ku faafaba waxa uu xafiisku kulamo kala duwan oo lagaga hortagayo cudurkani u qabtaa qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba xafiiska koortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan wacyigelin u qabtay kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka isla markaana la isku gorfeynayay dhibaatooyinka uu cudurkani leeyahay sidii markaasi kooxaha fanka ee deegaanku marka ay wacyigelintan qaataan ay bulshada u sii gaarsiin lahaayeen kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka waxaana ahmiyada kulankan inoogu warbixiyay agaasinka qorsheynta ee xafiiska koortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiwali Samriye maanta kulankan aan soo nimid wuxuu ahaa fanaanta iyo hawlada iyo abwaanada deegaanka kulan wacyigelin oo dood cilmiyeed panel discussion wada yeelanay wuxuu kamid yahay dadaalada uu xafiisku ugu jiro sidii xaddiga faafitaanka cudurka HIV/AIDS kaalinta ay kale yihiin abwaanadu fanaaniintu maadaama bulshadu waxyaalaha u badan dadka ay wax ka maqli karaan fanaaniintu ay ku dhex daraan riwaayadaha ay sameeyaan heesaha ay sameeyaan si bulshada deegaanka dhammaan ay u noqdaan kuwa ka baraarugsan dhankooda qaar kamid ah kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa noogu warbixiyay kulankani wacyigelinta faa'iidooyinka kala duwan ee ka heleen isla markaasina faahfaahin dheeraad ah naga siiyay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee uu xambaarsan yahay kulankan wuxuu ahaa dood cilmiyeed fikir isku weydaarsanay sidii looga sii hortagi lahaa bulshadana wacyigelin loo gaarsiin lahaa maadaama deegaankeena hadda horumar ballaaran uu ka socdo deegaanka Soomaalida Itoobiya inaynu mataqaanay da'yarta soo koraysa iyo cid kastaba aan ugu baraarujin lahayn inay iska ilaaliyaan run ahaantii waa dood cilmiyeed aad u qiimo badan buu ahaa oo mataqaanay waxyaalo badan aan ka fahanay kulankani wacyigelinta ee loo qabtay kooxaha fanka iyo suugaanta ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kaalin muhiim ka qaadan doona sidii loo xakameyn lahaa cudurkan HIV/AIDS isla markaasina bulshada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka cudurkan tababar ku saabsan nidaamka dhaqashada casriga ee digaaga ayaa loo qabtay iskaashatooyinka kala duwan ee maamulka magaalada Goday faalada warkana waxa magaalada Goday nooga soo diray wariyaheena laba nooga soo warrama gobolka Shabeelle wariye Jilaani Cabdi Nuur
waxaa madasha shirarka ee maamulka magaalada Goday ka qabsoomay tababar uu soo qaban qaabiyay xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. tababarkan oo loo qabtay dhammaanba iskaashatooyinka digaaga ee ka aasaasan maamulka magaalada Goday iyo degmada Goday. tababarkan oo ujeedadiisu tahay sidii fahan dheeraad ah looga siin lahaa iskaashatooyinka ka jira maamulka magaalada Goday iyo degmadaasi Goday, isla mar ahaantaana fahan buuxa looga siin lahaa habka casriga ah ee dhaqashada digaaga. ugu horeyntiina waxaa furitaankii tababarkan si wada jira ooga hadlay kusiisimaha maayirka maamulka magaalada Goday ahna madax xafiiseedka maayirka magaalada Goday mudane Maxamed Sheekh Cali iyo agaasin Cabdicasiis Guuleed oo ka socday xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee heer deegaan. hadaladoodina waxaa ka mid ahaa xubno khabiira oo xafiiska heer deegaan ka socda oo bartay habka casriga ee loo dhaqayo weeyaan xubnahana. sidaa daraadeed waxaan u baahanahay xubnaha jaaniska maanta u helay in ay tababarkan galaan oo u furmo in ay ka faa'iideystaan oo si fiican u qaataan, isla mar ahaantaana ay uga faa'iideeyaan xubnaha kale ee aan nasiibka u helin inay tababarkan galaan. xafiiskeenu kolley siduu asaasan yahay waxa weeye ka faa'iideysiga khayraadka xoolaha inaynu dhammaanteen fahanno kana faa'iideysano. kolleyba deegaankeenu takhasus waxaan u leenahay inaan xoolo dhaqannade xoolihii aan dhaqanaynay markaa digaaga oo kale uu ku yaraan jiray awal. kolka digaaga la eego faa'iidooyinkiisa anagoo aan hadda wadno waxa weeyaan in dadka inaan gaarsiino tahay kow digaagu inuu leeyahay faa'iidooyin ka duwan kuwa xoolaha oo ay ka mid tahay hilibka digaaga ee cad waa hilib cad baa la odhan karaa. hilibka cadi wuu ka nafaqo badan yahay kan xoolaha xagga nutritionka weey iyo waliba ukunta la isticmaalo. ubadka maskaxdoodana way korisaa. ubadka imka la siiyo ukun haddaan u fiirsano waxaa jirta maskaxdoodu wax qabadka iyo fahanka way kaga fiican tahay ubadka kale. Jilaani Cabdinuur, telefishinka caalamiga ee STV magaalada Goday ee gobolka Shabeelle. ururka midowga ardada deegaanka ayaa la yeeshay kulan ujeedadiisu ahay dardargelinta geed socodka horumarka deegaanka ardayda wax ka barata kuliyadda Jigjiga Bolotognaga ee magaalada Jigjiga. faallada warkaasna waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Ciise. dhalinyaradu waxay ugu horeysaa xoogaga firfircoon ee bulshooyinka adduunka waana maskaxda dihin ee wax ka bedesha qaab nololeedka bulsho kasta oo ku dhaqan adduunka waxaana dhalinyaradu dalkan Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida Itoobiya u yihiin xuduud horumarineed oo si buuxda uga qayb qaadata horumarka iyo waliba nabadgelyada deegaanka. haddaba ururka midowga ardayda deegaanka oo si dardar gelinaya kaalinta ay dhalinyaradu ku leeyihiin geedi socodka horumarineed ee deegaanka ayaa kulan la yeeshay ardayda wax ka barata kuliyadda Bolotechnikada ee magaalada Jigjiga. waxaana kulankani kala soo galay maamulka federeeshinka dhalinyarada ee heer deegaan iyo kan maamulka magaalada Jigjiga. kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii dhalinyarada wax ka barata kuliyadda Bolotechnikada ee magaalada Jigjiga ay u xoojin lahaayeen kaalintooda kaga aadan horumarka deegaanka ayaa waxaa laga wada hadlayay sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa ololayaal dhowr ah sida nadaafadda, dhiig shubid iyo barnaamijka iskaa wax u qabso. qorshayaashaasi oo lagu wado intooda badan inay qabsoomaan toddobaadkan dabayaaqadiisa, halka qorshaha iskaa wax u qabso ee volunteerismka waxbarashadana lagu wado in loo diyaar garoobi doono 2 bilood ee fasaxa sanad dugsiyeedka sanadkan. waxaana ugu horreyntii kulankan furay gudoomiyaha federeeshinka dhalinyarada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxbuub Ismaaciil oo tilmaamay in dhalinyarada looga baahan yahay inay si buuxda uga qayb qaataan isla markaasina ay si laban dadaalkii ay kaga qayb qaadan jireen geedi socodka horumarineed ee deegaanka. dhankiisa Axmed Nuur Sheekh Maxamuud gudoomiyaha midowga ardayda ee deegaanka oo kulankani ka hadlay ayaa cadeeyay in dhalinyarada wax ka barata kuliyadda Bolotechnikada ee magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba goobaha waxbarasho ee deegaanka looga baahan yahay inay si buuxda uga qayb qaataan ololayaashan ku soo foodlay. dhankooda ardayda wax ka barata kuliyadda Bolotechnikada ee magaalada Jigjiga ayaa iyaguna cadeeyay inay diyaar u yihiin inay sii xoojinayaan dadaaladii ay ka qayb qaadan jireen horumarka qaybihiisa kala duwan ee markaas ka qaaday deegaanka. maaha markii koobaad ee federeeshinka dhalinyarada ee deegaanka iyo ururka midowga ardayda ee deegaanka oo iskaashanaya ay howlo noocan ah ay markaasi ka qorshaystaan inay ka fuliyaan deegaanka, balse waxay hadda ka hor ka soo fuliyeen isla markaasina ka qayb qaateen ololayaal kala duwan oo lagu nadiifinayo goobo ka mid ah deegaanka, dhiig shubid iyo waliba barnaamijka volunteerismka ama iskaa wax u qabso ee waxbarashada oo ay markaasi sanad kasta 2 bilood ee fasaxa ay ka fuliyaan guud ahaanba deegaanka. وهاجاك داوديال halkaad nagala socotaani waa telefishinka caalamiga STV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga. intaas hadaan kaga gudubno qodobadii wararka idinka haynay deegaanka dhinaca iyo dalka.
kulan ku saabsanaa xoojinta wax soo saarka beeraha iyo kobcinta hawlaha dhinaca cilmi baadhista beeraha ayaa ka dhacay magaalada Hawaasa. Ibraahim Cabdi Muuse ayaa faallada warkaas inoo eegay. beeruhu waa lafdhabarta horumarka dalka waxaana laga maarmaana in la sii xoojiyo geedi socodka dhinaca wax soo saarka beeraha si hadaba arrintaasi loo taabageliyo waxa guud ahaanba dalka ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu kobcinayo horumarka beeraha dalka wasaaradda beeraha ee dalkeenuna waxa ay wadaa dadaalo ballaaran oo ku wajahan dardargelinta wax soo saarka beeraha dalka hadaba magaalada Hawaasa ee xarunta dawladda deegaanka shucuubta koonfureed ayaa waxa lagu qabtay kulan ku saabsanaa qaabkii loo dardargelin lahaa hawlaha la xidhiidha wax soo saarka beeraha gaar ahaan kor u qaadida daraasaadiyada kala duwan ee la xidhiidha cilmi baarista beeraha waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda beeraha iyo bahwadaagtooda iyo waliba aqoon-yahanada kala duwan ee ka hawlgala jaamacadaha dalka mar haddaba arrintaasi wax laga weydiiyay mudan Alamaayo Birhanu oo ka tirsan wasaaradda beeraha ee heer federaal ayaa waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay in la kobciyo hawlaha cilmi baarista ee dhinaca beeraha ሀገሪቱ የምትፈልገው እድገት ከህዝብ ብዛት ጋር ተያይዞ በሄድንበት ጎዳና በዛው መቀጠል በተለመደው አካሄድ መሄድ አይቻልም ለብዙ ሺህ ዓመታት በበሬ ስናርስ ነበር የቆየነው አሁንም ትውልዱ በበሬ ያረሰ ይቀጥል ማለት ከታሪክ ወደ ኋላ መመለስ ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ሜካናይዜሽን እድገት እየመጣ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ዓለማት ወደ ኢንዱስትሪ የተሸጋገሩት እጅግ ስለቆዩ horumarka dalku waqti xaadirkan u baahan yahay ma aha mid lagu salayn karo xaaladii aan ka soo gudubnay ee hadda ka hor waxaana lagu rajo weynaan jiray iyadoo la adeegsanayo cabirka bulshada dalka maxaa yeelay xaaladaasi waa mid laga soo gudbay waxaana maragmadoon ah inay bulshadu sanooyin badan beeraha ku falan jireen dibida marka haddii aynan xaaladaasi ka gudbin oo aynu maanta nidhaa jiilka soo kacaya sidii hore uun dibida waxa ugu qoto arrintaasi macna ahaan waxa ay ka turjumaysaa in taariikhdii hore loo soo dhaafay dib loogu naq oo haddana mar labaad kow laga soo bilaabo wixii aan soo dhaafnay sidaa darteed waa in teknolojiga casriga ah lala jaan qaado oo laga gudbo marxaladihii hore sababtoo ah dunidu waxa ay maanta maraysaa heer sare innaguna lamaynaan jaan qaadin oo halka ay gaadheen maynaan gaadhin si kastaba ha ahaatee haddana weli waqti inagama tegin ee waa inaynu iskaashanno innaga oo isku duuban aynu wadajir wada hananno teknolojiga casriga ah isla markaana si degdeg ah u dhaqangelinna fulinta hawshaasi innagoo adeegsanayna nidaamka cusub oo weliba ficil ahaan u bedelayn haddaba kulankan ku saabsan dardargelinta hawlaha dhinaca cilmi baadhista beeraha ee ka dhacay magaalada Hawaasa ayaa la filayaa inuu wax weyn ku soo kordhin doono geedi socodka wax soo saarka beeraha dalka warkaan idinka hayno dalka dibadiisa wadanka Jarmalka ayaa sheegay in la shaqeynayaan bahda hal-abuurka ee wadamada Afrika Jamila Jaamac ayaa faallada warkaas inoo haysa wadamada Afrika ayaa waxa ka socda horumar dhinacyo badan ah waxaana muuqata inay wadamada Afrika guulo la taaban karo ka soo hoyeen geedi socodka lagu kobcinayo horumarka dhaqan-dhaqaale ee qaaradda waxaana hadiyabeenba socda dadaalo ballaaran oo lagaga midho dhalinayo hadafkooda maadaama uu hiigsiga wadamada Afrika yahay helida horumar waara hadaba wadanka Jarmalka oo bogaadiya hawlaha dhinaca hal-abuurka ee ka socda wadamada Afrika ayaa sheegay in ay la shaqeyn doonaan bahda hal-abuurka ee wadamada Afrika wuxuuna wadanka Jarmalku aad u soo dhaweeyay qaab ay wadamada Afrika u wadaan hawlaha dhinaca hal-abuurka sidoo kale maalqabeennada wadanka Jarmalka ayaa ballan qaaday in ay si hagar la'aan ula shaqeyn doonaan oo ay waliba gacan qaban doonaan bahda hal-abuurka ee wadamada Afrika waxa kale oo arrintaasi garab socda dadaalo kale oo ku wajahan sidii loo gacan qaban lahaa hawlaha maalgashiga ee wadamada Afrika gaar ahaan kuwa shakhsiyaadku sida gaarka u leeyihiin waxaana la qabtay kulan ku saabsan qaabkii loo taakulayn lahaa bahda hal-abuurka ee wadamada Afrika waxaana kulankaasi la iskula qaatay wadamada Afrika lagu dhiirigeliyo hawlaha horumarineed ay wadaan maadaama ay laga maarmaan tahay in ay wadamada Afrika hantaan horumar waara geesta kale waxa kulankaasi lagu soo bandhigay qaabkii ay u hana qaadi lahaayeen hawlaha dhinaca maalgashiga ee wadamada Afrika gaar ahaan kuwa ay shakhsiyaadku iska leeyihiin waxaana la isla meel dhigay in wasaaradda dhaqaalaha ee dalka Jarmalku gacan ka geysato hirgelinta hawshaasi maadaama ay hadda ka hor wasaaraddu taakulayn jirtay oo ay si gaar ah gacanta ugu haysay waxa xusid mudan in sanadkii aan soo dhaafnay oo kaliya ay wasaaradda dhaqaalaha ee Jarmalku hawlfulin ahaan u siisay lacag ka badan 195 milyan oo dollar inta waxa inoogu eeg warkii aad kala socoteen TV-ga caalamiga STV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga warka hadda waxaad la socodsiinaya anigu Cabdiid Maxamed aniga asxaabta kale sida sare gala qayb qaadatay xilitabinta warkan anna isku duwan waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh